السلام عليكم كسو دواده هربد وهيغ tababarka injineerada mustaqbalka ah ka baran karta cilmiga kombiyuutarka qaybihiisa kala duwan adoo jooga goob kasta iyo goor kastaba waxaana naga soo booqan kartaa hurbad.com maanta oo 5 October 2021 waxa Microsoft ay soo saaraysaa waa Windows 11 iyo Microsoft Office 2021 maanta waxaa jira xaflad weyn ay qabanayso Microsoft ayna ku soo bandhigayso labadaas product horey waxa dhici karta inaad u maqashay Windows 11 inuu soo baxay balse waxa soo baxay ma ahayn official Microsoft Windows 11 ma ahayn wuxuu ahaa beta ayuu ahaa oo test ayaa lagu waday intaas waxa xasuusataa dhowr bilood ka hor in aan soo saarnay August aheed baan u maleynayaa inaan soo saarnay Windows 11 oo crash course aan haddana soo saarnay video kale oo ahaa sida installation loogu sameeyo Windows 11 waxyaalo badan baan ka hadalnay balse ma ahayn official release ma ahayn Windows 11 waxa uu soo baxayaaba waxay tahay waa maanta oo bishu 5 tahay October 2021 waxa ay Microsoft marka dadka siiyeen fursad ah inay update ay ku siinayaan free hadii upgrade ay ku siinayaan free hadaa Windows 10 hadaad haysato oo computerkaaga oo qaadan karo Windows 11 automatically ayaa waxa uu helaysaa free upgrade ayaa uu helaysaa sababtoo ah computerkaagana waxa lagaaga baahan yahay sababtoo Microsoft waxay rabtaa Windows 11 in la isticmaalo oo cilad bixiyaan ay rabaan waxa lagaaga baahan yahay computerkaagu in uu wato waa 1 GHz processor ku socda oo dual core ama ka badan waxa kale oo lagaaga baahan yahay 4 GB of RAM memory inuu computerkaagu leeyahay waxa kale oo lagaaga baahan yahay hard drive fiican space-kiisa inay ka banaan tahay waxa kale oo lagaaga baahan yahay graphic card oo compatible ah DirectX 2 alif in uu computerkaagu wato waxa kale oo lagaaga baahan yahay in screen-ka computerkaagu inuu 9 inches iyo wixii ka badan yahay oona qaadan karo 720 pixels inuu screen size inuu qaadan karo muuqaalkaas marka intaas oo dhan marka shuruudahaas buuxiso upgrade waad ku sameyn kartaa balse computerkaagu haduu yahay 4 GB aniga kugu lama taliyaan inaad Windows 11 upgrade ku sameyso sababtoo ah 4 GB waxa u baahan oo isku feereynaya waa Windows-ka marka program kale hadaa furto computerkaaga crash uu sameynaya marka hadaad computerkaagu haduu 8 GB iyo wixii ka badan yahay upgrade sameey hadii uusan ahayn upgrade ha sameynin waxa ku soo haray marka Windows 10 waxa uu soo baxay waa July 2015 ayuu soo baxay waxa uu dhacayaaba waxay tahay 14 October 2025 ayuu dhacayaa oo wali waxa jirta 4 sano kala sii isticmaali kartaa maaha wax dhacaya maanta inuu dhacay maaha 4 kala sano ayaa sii haysan kartaa markaas oo end of life ayuu noqonayaa oo Microsoft supportiga ay ka joojinaysaa balse ogaw Microsoft markay supportiga ka joojiso wali waa la sii isticmaali karaa sababtoo dad baa hadda wali waxay isticmaalaan Windows 7 ay isticmaalaan oo already laga joojiyay wax alla wixii supportiga ahaa waxay kale oo isticmaalaan qaarkood Windows XP oo mar hore laga joojiyay marka maahan inuu Windows-ku inuu shaqada uu gabayo maaha waad sii isticmaali kartaa qasabna waa Windows 11 inaad upgrade aad ku sameyso waxa kale oo soo baxaya ayaa waxaan idin waa Microsoft Office 2021 oo waqti badan la sugayay 2019 kiiba inta soo saareen Microsoft Office ayay waxay dhaheen midkaan baa ugu dambeeya sidii Windows 10 ay u dhahayeen midkaan baa ugu dambeeya ayay dadka dhan waxay ku dhaheen midkaan baa ugu dambeeya Office 2019 balse ma dhicin sababtoo ah waxay rabeen baa waxay tahay Microsoft 365 inay dadka ay ku qasbaan ay qof waliba subscription bishii oo bixiyo £6 oo kale ama $6 oo kale meesha adduunka joogtay ku xiran tahay balse dadkii waxay dhaheen maya sababtoo dad waxa jira isticmaal wali Office 2010 isticmaala oo wali aan upgrade sameeyeen marka maxaan lacag u bixinayaa bil kasta ayay dhaheen sidaa darteed ayaa Microsoft waxay sameeyeen inay xogahay garwaaqsadaan oo ay ka laabtaan go'aankaas ay kadib ay sameeyaan in ay Microsoft Office 2021 ay soo saaraan balse qorshuhu uguma jirin sidaa darteed ayaana looga hadli jirin waxaana arki doontiin baa waxay tahay Windows 11 iyo Microsoft Office 2021 koorsooyinkooda dhan oo train ilaa iyo 5 koorso Microsoft Office iyo Windows 11 dhawaan ayay soo galayaan oo sanadku inta soo dhamaanba hurbad waad ka helaysaa oo hadaad rabto inaad Office 2021 barato sida loo isticmaalo sida applicationada kala duwan shaqooyinka kala duwan loogu qabto waxa soo dhan diyaar ayay kugu noqonayaan mar dhow waxa marka dhici karta inaan Microsoft go'aamada ay qaadato kale inaan qaadano oo sida membership oo kale ay dadka ay ku qasbayeen qasab ina aad bishii inaad iska bixiso lacag yar si aad access u hesho productigeena go'aamadaas ay ka laabteen oo kale anaguna waxa dhici karta membershipkii aan ka hadlaynay
inaan ka laabano cabasho darteed nooga timin ardayda badankood marka waa inaan dadka ardaydeena ama customerskana inaan qiimeeyno waayo waxa ay naga codsanayaan waxaan idin rajeynayaa maalin wanaagsan waxaana sameyn doonaaba waxay tahay inaan linkiyada oo Ignite oo kale meesha aad ka daawan kartid YouTube channel-kooda oo Microsoft ay leedahay waxaan ka soo hadlayo dhan release date-kooda waxaas oo dhan videogan hoostiisa ayaan idin soo gelinayaa maalin wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh